Waxaana wanaagsan gabi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan channelka Gobson TV qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Muqdisho oo banaanbaxyo xoogan isqabsatay saacadihii la soo dhaafay shaqaalaha dawladda oo dibadbaxyo xoogan dhigaya iyagoo cabasho ka ah tallaabo culus oo dawladdu qaaday haddaba maxay tahay tallaabadan ay dawladdu ku dhaqaaqday cabashada weyn ay ka keeneen shaqaalihii dawladda ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena aabe iyo wiilkiisa lagu dilay iyagoo hal saf ku wada dukanaya sargaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo goor dhaweyd lagu dilay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana guda galin faahfaahinta qodobadaasi daawada waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba daawada waxaan kula wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo markaasi ku baahin doona halkan daqiiqada ka dambeysa waa maalinimo Sabtida taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha 11 ee November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay maleeshiyad hubeysan ay dil arxan darro ah ka geysteen qaybo kamid ah deegaanka Dhisiq ee Shurufle oo ka tirsan gobolka Galgaduud dilkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa loo geystay aabe iyo wiilkiisa xilli ay dukanayeen salaada cisha sida ay inoo sheegeen dad deegaanka ku sugan aabaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sheekh Ismaan Axmed Geedi waxaana si weyn looga yaqiinay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhacdadan ayaa Galmudug waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo goobta isaga baxsaday kadib markii ay toogashada fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Galmudug oo gaaray deegaanka ee mashaqadu ka dhacday ayaa sameeyay howlgallo kooban oo ay ku baadigoobayaan xubnihii ka dambeeyay dilkan Allah u naxariistay Sheekh Ismaan Axmed Geedi sheekha ayaa horay u soo noqday gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Cadaado waxaana la filayaa in maanta isaga iyo wiilkiisa lagu aaso halkaasi dhinaca kale wararka laga helaya deegaanka uu dilkan ka dhacay ayaa sheegaya in laga dareemayo saameynta ka dhalatay dhacdadan oo ay aad u hadal hayaan dadka deegaanka dhanka kale tana sargaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya ayaa goor dhaweyd lagu dilay magaalada Muqdisho kooxaha hubeysan ayaa xaafadda CC ee degmada Daynile ku dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka sargaalkan ayaa lagu magacaabi jiray General Cabdullaahi Xuseen Warsame Waran oo ka tirsanaa saraakiisha militariga Soomaaliya sargaalkan ayaa la sheegay inay dileen rag bistoolad ku labisan oo watay mootafaykoon kuwa oo dilka kadib goobta isaga baxsaday ciidanka ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilkan ka dhacay waxaana halkaasi ka wadaan howlgallo dilkan ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan darri ee haatan ka dhacaya gudaha caasimadda kuwaasi oo isugu jira weeraro qaraxyo ah iyo dilal ay kooxda Al-Shabaab ka fulinayso Muqdisho si kastaba dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan howlgallo culus oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka socdaan gobolada dalka dhanka kale tana shaqaalaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya ayaa maanta dibadbax cabasho ah ka dhigay magaalada Muqdisho iyagoo eedeyn culus u jeediyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasiirka uu saaka shaqada ka soo eriyay isla markaana ay haatan yihiin shaqo la'aan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista ee badaha Soomaaliya Cabdinuur Cabduqaadir oo goobta dibadbaxa ka hadlay ayaa shaaciyay in wasiirka boostada uu ka soo xirtay xafiisyadii ay ku shaqeynayeen oo ku yaala xarunta wasaaradda waxaana sheegay in 5 sano ay deganayeen halkaasi
ninka wasiirka ah qolalkii oo dhan ayuu naga xirtay, bannaanka ayuuna soo dhigay, saaka shaqo la'aan ayaan nahay, bannaanka ayaana taagannahay, muddo 5 sano ahna waan deganayn xarunta ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista Cabdinuur ee Cabdiqaadir. sidoo kale waxa uu tilmaamay in arrintan ay cabasho ka yihiin ayna u gudbinayaan madaxda kale ee dawladda, isagoo sheegay in dad kale uu wato wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. cabashada aan gudbinayno waxa ay tahay nidaam haddii uu jiro wasiir ee dhan waayay, isaga wuxuu la hadli karaa mas'uulka hay'adda dhowr jeer ayuuna na meermeeriyay, kadibna albaabada dhan ayuu bedelay waana xirtay ayuu sii raaciyay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda baarista ee badaha. sidoo kale oday kale oo ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda oo la hadlay warbaahinta ayaa isna ku daray in tallaabadan uu qaaday wasiirka ay la yaab ku noqotay maadaama ay ka wada tirsan yihiin hay'ada ahaan dawladda dhexe, isagoo ku baaqay in arrintan si degdeg ah wax loogu qabto. waxaana la yaabanahay maamul dawladeed oo maamul kale oo dawladeed ee ka xiranaya xafiiska, laakiin waxay ahayd in si nidaam ah naloo soo maro xitaa haddii xafiiska nalaga qaadayo ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha hay'adda cilmi baarista oo isna la hadlay warbaahinta Muqdisho. si kastaba ilaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo ku aadan shaqaalaha maanta ee dibadbaxaya, kuwaasi oo cabasho xoogan ka ah xarunta wasaaradda. daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade, waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada. mar waliba daawada waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan, anagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa.